320 kilomitir oo ay soo wadeen tan iyo 2001 oo hadba qayb la dhisayay ayaa iminka waxaa la dhameeyay qiyaastii 184 kilomitir waddo dhererkeedu yahay gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka Puntland Maxamed Yuusuf Tigey maanta isagoo jooga magaalada Garacad telefoonkan ku wareystay ayuu iga warramay ilaa iyo hadda wixii uu qabsoomay hawlihii dhismaha wadooyinka gobolka mudug. 2001 cabdinuur waxaa la dhisay jiriiban iyo inta u dhaxaysa Garacad halkaa waa 64 kilomitir. 2013 waxaa la bilaabay wejiga labaad 1 Janaayo iyo 2 Janaayo ayaa shir gobolka mudug oo ka dhan dadkiisu ay isugu yimaadeen degmada Galdogob ismadu ay hogaaminayeen oo uu shir gudoominayay Islaam Bashiir Islaan Cabdulle ayaa waxaa go'aan lagu qaatay in la dhiso kaabayaasha dhaqaalaha sida wadada isku xidha Gaalkacyo ee Galdogob ilaa iyo Garacad. Galdogob wadadii laga soo bilaabay waxa ay maraysaa Galdogob ilaa iyo magaalada taariikhiga ee Bayra oo 30 kilomitir ah. Gaalkacyo ayaa waxaa laga bilaabay sidoo kale 2013 waxaa iyadana la soo gaarsiiyey Gurmago'aanley oo ah iyaduna 70 kilomitir ceelbardale markii wax yar la dhaafsiiyo. waxaa kaloo la dhisay lacagta horumarinta Puntland loogu talagalay oo ah iyaduna 20 kilomitir oo u dhaxaysa Jiriiban iyo Balibusle. guud ahaan wadadaas sida lagu dhinta la dhisay waxa weeye 184 kilomitir. wadaduna guud ahaan waxa weeye waa 320 kilomitir. waa tahay gudoomiye aad baad u mahadsan tahay. maxaa idin harsan marka hadda waxaa noo harsan wadadaas waxaa hadda la dhisayaa wejigii saddexaad oo dhaqaalaha loo ururinayo. wejiga saddexaad waxa uu ka soo bilaabanayaa magaalada Bayra ilaa iyo Gaalkacyo iyo sidoo kale meesha la yiraahdo Gurmago'aanley ilaa iyo Jiriiban. guud ahaan wadadaas waxaa hadda looga dhiman waa ilaa 120 kilomitir. ujeedada iyadu waa Garacad oo magaalada xeebta gobolka mudug iyo degmada Galdogob oo xuduudda Itoobiya inta ay soo garno. hadda waxaanu wada soconaa wadada loo xilsaaray iyo hay'adda wadooyinka Puntland ee BHA la yiraahdo Puntland Highway Authority iyo maamulkii gobolka waxaanu wacyigelin ka wadnaa degmooyinka Jiriiban iyo nawaaxigeeda ilaa iyo Garacad. wadooyinka inta tiro la eego intaasoo sanaad soo wadeen kharash xoog la ku baxay ilaa iyo iminka maxaa ku baxay yaa gacan idinka siiya kharashka wadooyinkan waxa ku baxa waxa weeye waa dhaqaale ka yimaada bulshada kadibna ganacsatada Puntland ayaa gacan ka geysatay. gacantii ugu horeysay waxaa ka geystay Liibaan Boqor Muuse oo isaguna waxa weeye 2 cagaf carruurla iyo cagaf ugu daaqay. sidoo kale ganacsatada gobolka u dhalatay ee kambaniyada wax dhisa leh sida Gaari Yaasiin, Gorod Buufe, Ali Faarax iyo John Yardi markii la isku geeyay qalabkii bulshada iyo qalabkii wadadu lahayd iyo hay'adda wadooyinka Puntland oo dawladdu inta ay ugu talagashay ku qadhay iyo madaxweynaha oo ballan qaaday 20 kilomitir oo ka mid ah wadada inuu dhisayo iyo sidoo kale 100 neef oo ari ah oo dadka reer Balibusle ay oo shaqada ugu deeqay wadada. jaaliyadda dibadda ayaa gacan ka geysatay. wadanka Australia oo ugu horeeyay waxa uu soo dhiibay 16,000. sidoo kale daraad waxaana soo gaadhay lacag $10,000 oo gabdhaha Zambia ay iyaduna soo direen. waxaan hadda ku ururinaynaa dhaqaalihii degmada Jiriiban iyo nawaaxigeeda. halkudhiga iyagu waa wambixi aan wadada dhisnaa. maanta shirkii aanu ku qabanay Jiriiban waxaanu ka codsanay 4,000 oo neef oo ari ah. 4,000 way naga gudoomeen wayna wasnasiinayaan. haddii 4,000 la isku daro lacagteedu taqriiban ilaa $200,000 bay noqonaysaa. 200 shidaalkii iyo kharashkii iyo raashinkii iyo dayactirka qalabka haddii lagu bixiyo waxaan rajaynaynaa wadadu inay dhammaanayso ama dhawaanayso. aaway marka kaalintii maamulka Puntland ballan qaaday inay wax gacan ka geysanayso wadada isku xidha Hayl iyo Garowe. sidoo kale wadada isku xidha Bandarbayla iyo magaalada Qardho. sidoo kale wadada isku xidha Xeel Daahir iyo Xeeri Gaabo. sidoo kale wadada isku xidha Laaskoray iyo Boosaaso. intaasoo wada bulshaduna waa isdhexgalaysaa. dawladuna kaalinteeda ayay ka qaadanaysaa. ugu dambeyntii marka wadooyinkan ilaa iyo 2001 aad soo wadeen oo aad ka sheekeynaysay maxay yihiin malaamiba macarra wadadan cabdinuur dhulku waa dhul dhagax iyo ciid baabuurku tusaale ahaan waxa uu meeshii uu 1 kilomitir waxa laga yaabaa inuu ku jiri jiray 2 saacadood. haddana waxaa laga yaabaa 100 kilomitir inuu ku jiro 1 saac inuu ku maro. wadada hadda la dhisayaa waa in garaaba laga dhigo dhulkii jay la saaro oo waa si laami loo wada saaro. gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka Puntland Maxamed Yuusuf Tigey oo isagoo maanta magaalada Garacad jooga ka wareysanayay dhismaha wadooyinka halkaad nagala socotaan. walaanta Soomaaliga ee BBC London